السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وامر قرية موضوع إن التاريخ الدنيا ما تعرف أي دونا ذلك جبوت. تدوج السردوت سلقين ملتري كذا وين جترين يبقوش عاد ماني عيول السحب هذا الكاير وما حسابته. جبوت ومت قطالة من الاستراتيجية أو مدفق كل لمين أو هذه الدنيا واحد قبصة فرنسيسكا إنجليز هو سوداني واحد دعا مارينك عالمي باول مندب أي حكومة جليد كنال السويس وأنا مرين بيتك أفراد يقوم هي بس عالمك وأنا مرين تيم مرة لبعتين إلا صدقني شن رأس عالمك وهذا بدون إسلام مركنا كله برجع دح يدلك حسلوك التاريخين سي الصومال اليمن تن أيانا مناطق سيسي أو كريت من السويتش تعالمك ذاك جبوت وحالي هذا جمهورية جبوتي وكمديا هي ذلك كويا لجيس أفريقيا ودك جبوتي أو حدود اللي هي دل أي كمديهين دل كان الصومالية إثيوبيا إريتريا وأنا دل أي مرتو بدعس سيدو كلنا وهذا لنا كريال يعني بيوت كعدنا بدك لولك دلك جبوتي وحلو قياسا صدح إلى 20 كيلومتر سكوير تريد دلك ودنك كل شيء وحلو قياسا 9 أو كن أورو دلك جبوتي وحو مدح بنانيس كقاتي دلك فرنسيسكا 22 جون 1977 isla markaas ayayna dadka Djibouti aftaruun laga qaaday waxay ku doorteen inay noqdaan jamhuuriyad madax banaan caasimad wadanka waxa la yiraahdaa Djibouti teedka gaadiidku isku dhaafaana waa dhanka midig luqadda rasmiga ah ee dadkan laga hadlo waa Soomaali Anfar Faransiis iyo Carabi diinta wadankana waa Islaam waxaana dadku ku yahay 6 gobol 94% dadka wadanka ku nool waa Muslim halka 6 aysan muslim ahayn dastuurka wadanka u yaal wax uu qabaa in dalku yahay dal muslim ah dalka waxa ka jira dawlad la soo doorto waxa madaxweyne ka mudane Ismaaciil Cumar Geeli dhanka ciidanka hadii aan eegno dalkan waxa uu ka mid yahay wadamada Afrika ku yaala ee dhaqaalaha ugu badan ku bixiya dhanka ciidanka waxa ay dawladdu ku bixisay tayeynta ciidanka sanadka 2011 lacag gaaraysa $66 milyan cimil ahaan dalkan waxa uu kamid yahay wadamada dunida ugu kulul heerkulka wadanka cilcisahan wuxuu gaarayaa 32 ilaa 40 digrii meelaha ugu kulul caasimada Djibouti ayaa kamid ah dhaqan ahaan dalka Djibouti waxa uu dhaqanka kala mid yahay dadka Soomaaliyeed maadaama 60 dadka Djibouti ay Soomaali yihiin iyo dadka Anfarta sanadka 2012 waxa uu Mareykanku sheegay in saldhigiisa ku yaala Djibouti ay ka duuleen 16 diyaaradood oo nooca dagaalka ah waxayna Djibouti martigelisaa ciidamada ugu badan ee Mareykanka ka jooga Afrika oo gaaraya 4,000 askari waxayna degan yihiin saldhig lagu magacaabo Camp Liberty dhanka kale shiinuhu si uu u sugo ganacsigiisa gaaraya 200 milyan ee uu Afrika leeyahay wuxuu 2017 Djibouti ka furtay saldhigiisa ugu horeeyay ee uu ka furtay meel aan shina ahayn asagoo Djibouti geeyay 10,000 askari Djibouti waxa ay Mareykanka ka qaadaa ijaar gaaraya $70 milyan iyadoo sidoo kale shinaha ka qaada $100 milyan wuxuu shinuhu 2018 ka furay dalkan aag ganacsi oo ku kacaya $340 milyan iyadoo sidoo kale la gelinayo ganacsi ku kacaya $7 bilyan muddo 2 sano ah dalkan naafta iyo gaas waxa uu ah dekadaha iyadoo la rakabay qatareen oo isku xiraya Djibouti iyo Addis Ababa maadaama ay Ethiopia 90% wax kala soo degto dekada Djibouti dekada Dooraale waa isha dhaqaalaha ugu badan ka soo gala Djibouti waana halka shaqada ugu badan ka helaan fursad shaqo dalkan waxa uu sidoo kale dhaqaalaha ka helaa dalxiiska waxaana laga helaa meel la dhaho Lake Asal oo ah meesha ugu hooseysa qaaradda Afrika waxayna jooga badda ka hooseysa 150 mitir sidoo kalena waa meelaha ugu kulul caalamka dhaqaalaha tirada badan ee Djibouti ka rogto dadka dalkan lagu sameeyo shaqo abuur ayadoo dadka dalkan 40% shaqo la'aan yihiin waa maxay sababtu hadaba ra'yiga ugu reeb commentiga